inkastoo sanboorka uusan ahayn xanuun halis ah balse wuxuu saameyn karaa nolol maalmeedkaaga. Muuqaalkan ayaan ku sharxayaa waxa uu yahay sanboorka, waxyaabaha keeno, astaamaha lagu garto iyo sida lagu daweeyo. Laakiinse muuqaalka qaybtiisa dambe ayaan kugu sharxayaa sida dabiiciga ah ee aad isaga daweey kartid sanboorka adiga oo aan tagin wax dhakhtar ah. Soo dhawow. sanboorka wuxuu ka mid yahay xanuunada ugu badan ee ku dhaca bulshadeena Soomaalida ah. Marka waa maxay sanboor? sanboorka wuxuu ka mid yahay xanuunada allergiga ah ama wax loo yaqaan xasaasiyadda. gaar ahaan sanboorka waa in uu caabuq ku yimaado sanka. xanuunada loo yaqaan allergiga ama xasaasiyadda way badan yihiin, waxyaabo badan ayaa sababa. muuqaalka ka horeeyay ayaan ku sharxay xasaasiyadda waxa ay tahay, waxyaabaha sababa iyo sida loo daweeyo. Si aad u fahantid waxa loo yaqaan sanboorka, marka hore waa inaad faham guud ka haysatid xasaasiyadda waxa ay tahay iyo waxyaabaha sababa. muuqaalkaas hore soo daawo, linkiga ama lifaaq waxaan kuu dhigi doonaa xagga hoose ee description-ka. haddaan u soo noqono casharkeena sanboorka ah, sanboorka sidaan soo sheegnay waa inuu caabuq ku yimaado sanka, waana nooc ka mid ah allergiga ama nooc ka mid ah xasaasiyadda. marka waxyaabo gooni ah ayaa kiciyo xasaasiyadda. marka guud ahaan dadku way ku kala duwan yihiin, qof walba waxba u daran oo waxba ku kiciyo. waxyaabaha ugu badan ee kugu kicinaya sanboorka waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan dhastiga oo ah boorka. sidoo kale waxaa kugu kici karo qiiqa iyo sidoo kale waxyaabaha carfayo, gaar ahaan perfumeska. sidoo kale waxyaabaha kicinaya sanboorka waxaa ka mid ah dawooyinka qaar, gaar ahaan dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah, kuwa loo yaqaan aspirin iyo ibuprofen. waxyaabahani iyo waxyaabo ka badan ayaa kugu kici karo xasaasiyadda ama sanboorkaba. marka sanboorka dadku way ku kala duwan yihiin, saan sheegnay qof walba waxa u daran. waxaa jira dad qaar inay cuntooyin qaar ku kiciyaan, dad qaarna inay ku kiciyaan waxyaabo kale oo afartan ka duwan. balse afartan qodob ay hadda sheegnay waa waxyaabaha ugu badan ee dadka ku kiciya sanboorka. qodobadan aan hadda soo sheegnay ee aan dhahnay waa waxyaabaha kicinaya sanboorka, jirkeena wuxuu u qaadanayaa waxyaabo foreign ah ama waxyaabo dhib u keenayo. sida caadiga ah, habdhiska difaaca jirkeena ah wuxuu naga difaacaa waxyaabaha jirka soo weeraraya. waxyaabaha jirka soo weerara waxaa loo yaqaanaa foreigns. waxyaabahaas waxaa ka mid ah bakteeriyada, viruska iyo wixii la mid ah. waxyaabaha kugu kicinaya sanboorka markaad isticmaashid oo ay jirkaada galaan, habdhiska difaaca jirkeena wuxuu soo daynayaa chemical loo yaqaan histamine. chemicadaas waxay la dagaalaysaa waxyaabihii jirka soo galay. marka waxaa ka dhalanayo astaamihii sanboorka, sida inaad dareentid cuncun iyo inaad dareentid hindhisyo iyo wixii la mid ah. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah waa maxay astaamaha ama calaamadaha lagu garanayo sanboorka. astaamaha ugu badan ee lagu arkayo qofka leh sanboorka waxaa ka mid ah hindhisyo, sidoo kale inuu ka dareemo cuncun maqaarka iyo indhaha. sidoo kale wuxuu isku arki karaa cabursanaan iyo diif badan inuu ka yimaado. astaamo ka duwan way lahaan karaan dadka qaar. astaamaha dadku way ku kala duwanaan karaan, balse afartan astaan ayaa inta ugu badan lagu arkaa qofka leh sanboorka. haddaba qaab noocee ah ayaa loo daweeyaa sanboorka? qaabka loo daweeyo sanboorka waxaa kala qaadi doonaa laba qaybood. qaybta koowaad waa inaad iska joojisid waxyaabaha kugu kicinaya. tusaale ahaan, haddii sanboorka ay kugu kicinaya waxyaabaha carfayo ama perfumeska oo kale, inaad ka fogaatid barfuunada iyo goobaha carfayo kale. balse haddii aadan ka maarmin waxyaabaha carfayo ama inaad tagtid goobaha carfayo, waxaad isticmaali kartaa face mask ama waji xire si aad ugu ilaalisid waxyaabahaas inay jirkaada galaan. sidoo kale waxaa lagu daweey karaa dawooyinka loo yaqaan antihistamine drugs ay ka mid tahay dawada loo yaqaan loratadine. qaabkii u shaqeynayaan dawooyinka loo yaqaan antihistamine drugs wax kale ma ahan, waxay hoos u dhigayaan habdhiska difaaca jirkeena falcelinta uu sameyn lahay. marka waxaa yaraanayo astaamihii kaa soo muuqan lahay. sidoo kale dawooyinka loo isticmaalo in lagu daweeyo sanboorka waxaa ka mid ah dawooyinka loo yaqaan nasal spray oo ah dawooyinka yar ee la soo qaado sanka lagu buufiyo. dawooyinkan inta badan waa kuwa antihistamine drugs aan soo sheegnay, ayagoo spray ah ayaa la helaa. kuwaasi ayaan ugu fiican ee lagu daweeyo sanboorka. waxaan u gudbi doonaa qaybtii ugu dambeysay oo ah sida dabiiciga ah isaga daweey kartid sanboorka adiga oo aan tagin wax dhakhtar ah. sida caadiga ah waxaa fiican inaad ka fogaatid waxyaabaha kugu kicinaya sanboorka. balse
sida ay dhakhaatiirta cilmi baaris ay ku sameeyeen kuna ogaadeen ayaa ah waxa ugu fiican ee dabiiciga ah ee lagu daweyn karo sanboorka inuu yahay xabasoodada. xabasoodada waxay ka mid tahay waxyaabaha dabiiciga ah ee lagu daweyn karo sanboorka. haddaba qaab noocee ah ayaa loo isticmaalaa saliidda xabasoodada ah sida la iskaga daweeyo sanboorka? qaabka ugu fiican ee loo isticmaalo saliidda xabasoodada waa inaad isticmaashid subax kasta muddo 6 isbuuc ah, kadibna isbeddel ayaa ka dareemi doontaa ilaa idinkiis. qaabkaad u isticmaalaysid waa inaad soo qaadataa saliidda xabasoodada ah, kadibna aad ku shubtid 2 dhibcood duleelka sanka. duleelka sanka midig 1 dhibic inaad ku shubtid, duleelka sanka bidixna aad ku shubtid 1 dhibic. qaabkaas ayaa ah qaabka ugu fiican ee lagu daweyn karo sanboorka. saan soo sheegnay waxaan wadaysaa muddo 6 isbuuc ah adigoo isticmaalaya subax kasta. sidoo kale qaabka labaad ee lagu daweyn karo sanboorka waa inaad isticmaashid wax loo yaqaano nasal irrigation oo ah sankaada inaad nadiifisid oo aad ku nadiifisid biyo. haddaba qaab noocee ay ku nadiifinaysaa? waxaad soo qaadanaysaa cirbadda qaybta syringe-ga ah ama qaybta caaga ah. qaybtaas ayaa waxaad ku soo qaadaysaa biyo, kadibna waxaad ku shubaysaa sanka. gaar ahaan waxaad isticmaalaysaa xilliga habeenkii ah. si aad sawirka ugu jeedidba qaabkan ayaa loo isticmaalaa nasal irrigation-ka. syringe-ga ayaa soo qaadaysaa biyo yar ayaa ku soo qaadaysaa, kadib sanka ayaa ku nadiifinaysaa. qaabkan aan sheegnay oo loo yaqaano nasal irrigation-ka waxaa la isticmaalaa xilliga habeenkii ah. sababtoo ah waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan inaad ku socotay waddo dhastiga ama boorka uu ku badan yahay, uu sankaagana uu ku jiro boor badan. marka waxay ka hortagaysaa boorkaas waxayna nadiifinaysaa sankaaga. marka waxaa fiican markaad isticmaalaysid saliidda xabasoodada muddada 6 isbuuc inaad ku garaboodid nasal irrigation-ka oo aad habeen kasto sankaaga ku nadiifisid biyo. sidoo kale nasal irrigation-ka qaabka kale aad u isticmaali kartid waa markaad weysaysanaysid oo kale, inaad biyo yar gacantaada ku soo qaadatid kadibna sankaaga u dhaweysid adigoo hawada gadaal u qaadanayo. qaabkan kaleetan waa loo isticmaali karaa nasal irrigation-ka. waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like noo saarto, qaybta hoose commentigana nagula wadaag qaabkaad iskaga daweysid sanboorka. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan, waxaan kuu rajeynayaa khayr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.